كفتك واتر مرك كفتك ماشي أنا جلسة قدوميها مركو قبتي يا صوعي قدومي كفتا منا وحن قدومي وحن مغلي موشين بالغتي ساوحيه مركاسير واي هريا لا موشينك وحن كوير ساوي يجيه وحير بلان كوغو سو علي ورقديه وساس بروبي واي وسو علي وحو يري نمبر كاس وين ويا كدنبيا waxa ka dambeeyay dad waalaha ah oo la yiraahdo qabyo oo waxay maqabyadaas la ogeyn waa qabyo waxaan ku yiri bal fiiri qabyo waxaan ku ogeyn wax walba haaf inay uga tagaane bal fiiri hadduu mooshinka dhan yahay in kale dib uu fiiriyay wuxuu arkay saxiixiyo la saxiixay 2017 tuhunka la qabana uu yahay dhamaadka 2018 waxaan ku yiri marka hadee say isu waafaqaysaa wuxuu yiri waxay arkayeen wax soo socda sanadka bacdi waxaan ku yiri khalkan ku jira waa isla ognahay waxa laga yaabaa qabyo badan meesha ku jirteen waa fiiri wuxuu yiri saxiixa waxa ka maqan dateski waxaan ku yiri see dates qofku ku iloobi hadduu qofka saxiixay see ku iloobi waqtiga uu saxiixay waxaan ku yiri haye maxaa kale ku jira wuxuu yiri dad kale oo waxa jira oo xanuunsan oo dibadaha jira oo aan ka warqabin waxaan ku yiri marka waayahay gudoomiye maxay tahay waxaan see wax u jiraan motif muxuu yahay maxaa laga daleeyaa waxaan illa waaba sheegtay waa qabye wuxuu yiri hore wuxuu yiraahdeen qabye ninkeeda dhameystira waxaan ku yiri waayahay waa dhabe qabye ninkeeda dhameystireen taas 2016 soo ma ahayn wuxuu yiri maya waa 2019 waayahay maxay rabaan marka ma weydiis waa weydiiyo yiri waxay rabaan waxaa ka mid ah guddiga hanti soo celinta in lagu daro ay iyagu maamulaan inay ka shaqeeyaan soo dhawaanshaha shacabka iyo dawladda inay dhamaystir ku sameeyaan wax alla wixii heshiisyo hore u jiray in maxaa ku raada kanaalkan sheegay ayaan dhawey oo wabi ka soo fatahay in la furo beerta loo daayo waxay rabaan uu yiri inay xoojiyaan ama ka shaqeeyaan xoojinta hufnaanta dhaqaalaha waxay rabaan uu yiri in ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan mushahar bixinta tan ugu dambaysa waxay rabaan uu yiri inay sharafka ummadda Soomaaliyeed soo celiyaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh